2025 waxaan dhihi karaa filimkii ugu fiicnaa inaad daawado abeed gacmaha taagay caawa waxaa waaye reer Tamil Nadu u sacbiyey Tamil Nadu caawa u sacbiyey feer iyo faralaab ma jiro qayle iyo buuq ma jirto sports ma jiro family drama ad macaan wada movie wada history alla family kaano kala hadeen run u jiri lahayna waa familada lagu riyo dream family waaye tourist family qoyskii dalxiisayaasha ahay magaca waxaan filaa qofka aan daawan wax badan ku sawiran tourist family markii aan arkay waxa ii sawirnay iyo kaartada ka soo bandhigeen filimkan 9 karoor ku dhawaaday iyo blockbuster ka noqday historia filimkii Sratra maalmo hore ka fiicnaa kadib kan soo laba kaclay Sasi Kumar waxa isdhahay xaaskiisii labadiis cunug dalxiis ay aadayaan doorka may ku dhumayaan cidi dabcan meelaha tagtagaan magaalooyinka may ku soo wareegaan maxay Tamil ku jeclaadana isdhahay wallahi waa iga kaftaniga ma waa iga dhabe waxa conceptiga filimka aan ka haystay iyo marka aan daawaday si u kala duwan yihiin ka Afrika dheeri waa wallahi waa igaadeen Tamil Nadu waa magac bixinta عادي maaha qof kasto aan daawan hadda waxa ku soo waran comment ku qor tourist family marka aragta filimkaas magacaas iyo kaartadii cid dalxiisaas la ku soo warnado daruuf qabsan karta ama iska baashaalayaan oo Tamil Nadu isdaad bariyahan dalxiis cid dalxiisaas waa iska taageeraan laakiin meesha there is a great history waxa waaye buuga waxa jirta oraacaan oo dhahaysan never a judge book by discover waliga buuga ku xugminin coverkiisa ku xugmin am ciwaanka ee gudaha u gal dulucda akhri filimka marka tourist family soo daawo what a movie dhankayga 5 star and simple movie way oo 5 star xoog iyo dagaal ma iga qaadanne human connection sida filimka ula falgalay ani ina jilaa isku haysto filimka doorka aabanimada door kasta oo filimku waxa qofka daawanayo macnaha well connected loo noqonaa what a history meesha aniga film iskama amaano waa iga keensada maana tourist family waa iga keensada mid kale tan waxa ku leeyahay daawada caga dhigo wax loo ordo oo meesha ma yaalo wax waali waa factor kuma arkaysi simplicity movie simple movie film iska sahlan waaye sheeko macquul waaye oo adiga dabcan ku qaadanayso hal meel oo ay qiyaani kaga jirto malahan hal meel oo iska dawareeg ku jirto malahan hal meel oo fahmi kuma jirto saasay tahay simple ku bilaabana simple ku dhamaana saasay tahay wow caadi ma filmka maskaxdu ka qabsana ilaa hadda waa si macaansanayaa tourist family aan u soo laabto marka filimkan saaxiibada 5 star ka aan si muxuu ka hadlaa meesha wax la qariimay film laba bil saarna tiyaatarada bil iyo xogaa saarna tiyaatarada oo ka sheekeynayna oo Netflix internet la soo galish Netflix I think ma qameesh la soo galiyo oo tig la soo galish af Soomaal laga dhigay waxaan qarina meesha ma yaalo tourist family magaca ee filimka bab islaam laakiin marka filimka daawatada magaca family saa waxa waa Sasi Kumar xaaskiisa Simran iyo labadiis cunug waxay ka imaanayaan Sri Lanka nolosha ku adkaanayso dhaqaale xumaa jirta xaaladii aad u xun yogi babu ku nool dhankaas iyo Tamil Nadu la soo hadlayaan waliba Simran walaalkeedu ku matalaya yogi babu wuxuu dhaa war ka soo tago Sri Lanka yasan baahay in ku dilnay iyo xaalada xun ee imaada Tamil Nadu imaada doonay soo raacayaan doontii markay xeebta ka soo degaanbo askarta qabsanayso askarta markay qabsato waxa waaye yogiba buuxita xeebtu jooga xinina oo akaash la mi hebelo barkash mi anaga oo shuluqoona soo sir meelahan kama dheero waa la yogiba buun wala soo qabana booliski baawarka markii la soo saaro xabsiga loo sii wado cuniga yare atooraha u dhalay ilmaha yariiska dabcan askari qiyaamaha oo shaaku u galay wuxuu leeyahay eegaanayto u baahan yahay mudane cunto u baahan yahay kan waaye aniga waxa la yiraahdaa akaash la yiraahdaa taliyadan waa kala badbadanaa anoo wuxuu la taliyay wiilka akaash la cid fiicanatiin orda iska baxo dhaa simple oo iska soo fasaxa wada isaga soo lugeynaa kulligood macna yogi baabu gaariga soo raacay markii dambe gaariga jibsi waxba ku cunaa qashinka intuu bacda ka buuxsho odagii oo xiro oo dabcan gaariga joojiye meelaha qashinka magaalada bartamaheedu bacda qashinka sigrida marka kadib yogi baabu soo wadaya xaafadu keena marka uu ku dhex daraa uu leeyahay meeshaan meel iska fiican waaye guriga maama degan iskala dega guriga wax laga siinaa qaybta kore marka imaada maamada odageeda askari waaye askariga ka cabsanaa marka hore waxay waxa ka imaanay kareela ka imaanay dadkii iskala qabsanayaan odagii shaqo ma haysto waxa waa cunigiisii odagu waxaan aqsan yahay kadib odaga nin daris la oo hanti haysto uu tagaa wuxuu leeyahay waxa darawalnimo ku noqon darawal xal ii noqon laakiin marka hore tijaabo gal lacag kuma siina marka tijaabada ka soo baxdaan dabcan ku shaqaaleysiina darawalnimada iska noqonaa dadka xaafadda ninkan waa jeclaan qof kasto garab siina waxa daris la maamo waayeel oday waayeel atooraha xaaskiisa Simran la saaxiibayaan waa iskaga imaadaa waa caawiyaan markii dambe maalinka ugu dambeeyay maamadii oo naxsana waxay ku leedahay atirashadii kaala gabadheedii odagay ilaa hadda waa kicilaa waligiis waqtigan wada kuma gaarin soo bax iyo kacasho waa soo raacin atooradii iyo xaaskiisa guriga soo galaan odagii waa cabaari garaac marka dambe soo kaca maxaa idin ku dhacay waxa la maanta maxaa ku dar wuxuu dhawaad daalna daal xun waa jiifta marka xaaska iga naxdamiya saas bay kugu soo odaga jiita ma umale saas ma kugu soo wacday haaya dhahan xaaska way ku jeceshay hadii ay jiif ka soo baxaan barandada fadhiga imaadaanba
maamadii waaba dhimatay khalaf naxdin waxay isdhaad odagaagii oo dabcan oo labadiina kaliya ahaadeen maanta hadduu kaa tegay oo dariska ugu cato lasoo fiirina ilaa ninka hurda leeba heesaybo ayada waxaa naxdinta ay ka naxdeeb la jiidato waa dhimatay markaasoo duq iska oynaya wuxuu leeyahay aniga ayada waa isla baxsanaa familkeena waa iskan diideen maanta cidii imaanaysa male aabeed wuxuu idhahay dabcan gabadheeda maanta haddaa wadatay beri markii kaa geeriyoto agoona noqonaysaa labadiina tiim waa idin daalina markaasoo odayga iska oynaa intuu baxo atoorihii wuxuu dabcan cid kasta albaab u garaac leeyahay soo bax odayga sam amsas kuma cid kasta u garaac leeyahay soo baxa maashaaneet waxa ninkan waayeelka kaligiis waa xaaskiis waa ka dhimatay markaas dadka xaafadna isku keenaa markaas odayga si fiican meydkii loola asturaa markaas iska oynaa odayga wuxuu ogaanaa inuu atooraha nin fiican u yahay dadkii xaafadii u dhexgalaya kulli uu isku sheegaya si familka inay Sri Lanka imaadeen si daacadnimo wax walba uga sheekeynayaan odayga askariga la degan gabadhiisa xitaa waxay jeclaanay atooraha wiilkiisa jeclaanay atooraha wiilkiisa aabiis u xanaaqsan yahay sababtoo Sri Lanka ka soo wada gabar oo jeclaa laga soo waday gabadhii waa laga guursanaa si odayga waa isku dhacay cunigi markii dambe way heshiinayaan familkii waa farxadoodii gabadha xitaa cunigaana jeclaan wax arkaysa sida ciidaan u faraxsan yihiin haddana waxa saasayta waxa jirto qaraxa ka dhacay jinaay dhexdeeda qaraxi markuu ka dhaca waxa la leeyahay hal baarbaar meelaha markii la baarbaaro waxaa la leeyahay dabcan meelaha qashinka bac lagu riday oo qarax ah saas u qaraxday CC camera marka la fiirsho waxa la arkaa marka atooriya iska maskiinka ah markii magaalada soo galayeen cidiis intuu ka aruusha baabuurka saarnaayeen wixii qashinka jibsiga ku cuneen oo bacda ku ridaan markaas uu taliyihii oo sii daayay laba taliye kala xidhan ninka aan sii deena mujidin waa kana asaa qarax ka dambe maskiin ilaahay waa bac qashin loo meel sagrid waxa la asaa ka dambe taliyihii marka dheerka wuxuu leeyahay ninkaan daacad waa niman iska maskiin waaye hay u sheegana taliyaha kala daan u sheegana qamarjiga cidaas uu dilaa meel anaga hadda meel ku sheegna male kiiska naga qariyo adiga waa la daboolay si loo daboolay taliyihii daboolay ayaa waxa uu maanay cunig oo asna dhahayo waxa iga maqan qof iga maqan markuu oobi ka qormaa uu dhahaya qofkaas dib u laa uu garaaca wuxuu leeyahay anma ay ku raadinay eeyga marka kaga sheekay markii dambe uu leeyahay eeygaas iisoo waa isdila wuxuu ogaanaa eeyga inuu yahay eeygi oo xeebta uu ka soo helay cunigi atoori bilaaw si askari loo gaadal dhahay eeyga way baahiya hayso magaci akaasha Allah askariga ciil ah qabanay wuxuu leeyahay arcidaas ma sii daay oo beentas ii sheegeen haddana wuxuu leeyahay bacdi qarax meesha eeyga dhigeen soo bax taliyihii u tagaa marka taliyihina baxar ku jira kiisna intuu garaaco dhimara waxa la daaratay inuu kiiskaas laga tiro wada xabsi gelin qaraxii dhacay dadka dambe keenay la taliyo maana uu leeyahay taliyo qaraxa cidaas ka dambe markaas askari intuu qabtaliyo darbaaxyana la waraa intaasna waxa ay qarnays hadda aan raadin soo bax Allah meesha joogan ba raadin raadis galaan adal muhiim si u raadinayaan waxay soo ogaanayaan waxay arkayaan dib ugu laabanayaan CC camerada markuu atooraha bacda qashin intuu qaado ku dhex ridayo gaariga uu saarnaa taargadiisa qornaan xariifkii taargadii raadina waa helaan gurigiisa ugu tagayaan koo taksiil iska shaqaraabto waa garaaca ma bad iyo xabad ka garaaca heleen cidaas sheeg markii dambe wuxuu leeyahay asna aniga ma qameel joogan laakiin meel heblaayaan geeyay xaafadaas oo lagu wada nool meesha sangeeyay bis waa taliyaashi lug fiican heleen jaanis fiican heleen odagii shaqadii oo darwalnimada uu ka tagay haddana odagii u soo laabanaa uu kale uu leeshiina dadkii xaafadana dabcan wada jeclaanayaan cunig kale wax cunig xataa waxa ku jira cabtooy oo dadka naceen iska dhagaxeeya maalin walba la dilo cunigiya maalin ayadoo maamadii dhimatay la xusaayo oo dabcan ka geeriyood odagii oo dabcan bilaaw film ka sheekeynayna ka geeriyood meel la joogo oo kaniisad la sheekeynay xariifka cabtooydiya soo galaya dadkana waxay leeyahay wuxuu sheegay wuxuu leeyahay ana raal ahaada waa fiicnaaday biri Dubai aan u socdaa dadka xaafad waa dhibsan waa ogahay qashin kasto iyo dhala kasta banaan ku soo tuulan xuna iska ahay laakiin waliga inii xaaladeed ima wareysan ninkaas wuxuu leeyahay in ku dhex jiro ayaa wuxuu leeyahay xaaladeed iga wareystay waxaan ahay uu leeyahay qof dabcan iska shaqeysto hooyadii guriga ii joogtay xanuunsan hooyadii aan farxad la wadaagi jiray raashin siin jiray maalin dambe hooyadii waxay keentay inay ilowdo hadda anu cunto la cuno waxay dhaysaa wiilkayga cunto ma cuntay waxaan dhahaa maalin kasta hooyo cunno waa cunay marka ereygaas maalin kasta dhigi jirto xasuusta ka tagays laakiin maalinka dambe wuxuu dhahaa hooyo la joogo kalmad aan waliga ilaaw doonay dhahday kalmadii waxa uu ka sheekeynaa marka maamadii inta fadhiso asoo active fadhiyo waxay dhahaysaa wiilkayga adi magaca waaga ku baryay heer waxay gaareen maamada asaga xitaa ilowda maalinkaas adduun ugu dambeysay hooyadii aan ku soo dhibtoonay oo wuxuu dhahaa iska ilowda cuntada inay cunto ina ana cuna kale ka siin hadeeba aan garan waa soo magaciina ka sii waas maxaab iyo dunida maamada waa sakaraade sarare kore waa dhimanay intaas dadka dariska ma waraha ninkan kaligiis iska dhibaataysan markii hooyadiis ka dhimato cabtooy iyo balaay iyo dhibaato gal markuu wuxuu leeyahay cabtooynimada wax ay keenaba waa maalinkan hooyadii waa maalna wuxuu dhahaa intaan xataa cabitaanka sun ku darto cabay rafaad dhulka ku rafanaa qof kasta iga tago oo dhiman la ah ayaa wuxuu leeyahay ninkan odagii umtimaa marka imsaasi ku mar ninkan ay qaado leeyahay ambalaas iyo isbitaal u geeyay waa soo daaweeyay guriga uu keenay wuxuu leeyahay marka abaalku igu leeyahay ninkan ma leey kartiin
وانا قفك وحدا هويدي ديجت cunto ma cunte qofkii ugu dambeeyay dhahana asoo aha marka xulaa dartiis markuu noloshay badbaadiyaan noqdo qof fiican maanta shaqayste Dubai u socdaa waninkan wuxuu leeyahay fiican yoos idinka fakin markaas dadkii dhan xaafadii ninka wada jeclaana haddana qof kasta oo caawina qof kasta oo garab siina familkiisa farxadii caadi ma waa isugu dib dhacsantay imaanay xafaantii askarti bahar ku jirana imaanaan oo ninkan foosto u riixi rabaan wuxuu imaanaa taliye xaafada ka talina gurigiisu degan yahay xitaa ninkan oo Sri Lanka taliye la imaanaa waxa leeyahay xaafada aad degan tahay waxa joonin qoys Sri Lanka qaraxi yaan dhaxas dhacay ka dambeeyay dad xasuuqeen waxaan u baahnaa wad wuxuu leeyahay taliye meesha masaakiina joogan nabad Allah aad waxaas ma jirtee xaafada iskoora laga qabanaa wax Allah wixii baabuur la keenaya signalka laga jaraa microphone qaadan taliyaashu waxay leeyihiin kulligiin guriga in ku galeynaa abiis waa qabtiin digniinta ugu dambaysa insinina iska soo saaray cid Sri Lanka imaado oo qarax geysto xaafadan ku dhex jirto iska soo saaray soo dhiibaan sanad galiya wadana saligan geenina kadib su'aalo la weydiin laakiin soo dhiib waan guri ka sinta galno hadaan soo helna bag xawala garaacina tilaabo sharci ka qaadana wax u jawaab mal odagii naxdin iyo cidiisa guriga dabaqay u dhinac ka saareen xaafadan isku wara laga hay markaas wuxuu leeyahay maanta waxaan sameeynaa cunigu wuxuu leeyahay wiilkiis aaba isdiimno odagu wuxuu leeyahay isma dhiibeen ana idin difaacay maamadii duco waa ayagu isku yaaban waxay bilaabayaan marka taliyashi xaafad waaweyn hadba guriga galaan cid kasta wareystaan taliye oo yaqaan ciidan wala socda xeeb inta ka soo wado xariif si deynay ciidan miya Allah ma ah ciidan miya ma ah si loogu hay hal guriga soo haray waxa la guriga waxa soo haray taliyaha xaafad degan qaybta hoose degan qaybta sarna ciidan degan bis taliye weyn wuxuu leeyahay sabab wuxuu leeyahay ana galay wala laba kala wadana albaab u garaaca cabsi markuu ka furo atoorihi guriga lagu dhex galay cidiisi labadiis cunug iyo maamadii asiga waa waxa leeyahay magaciisa sheega cuniga maxaa qabataa la darawala cuniga waxa leeyahay maxaa qabataa waxa ma qabtuu leeyahay shaqo raayis ku jira maamada guri joogta iska ahay dokumentiyaashiina keenay leeyahay odagu waa cabsan cuniga wuxuu aab dokumentiyaashu fiirinaya inta meeqa degantii 8 sano iska dhahayaan ayagoo hadalka waraysigooda waxa gudaha u soo galaayo ninkii yaqaanay oo xeebta ka soo wada iska sii daaya soo galay markuu soo galo cidi wada naxdin qaracan waxay isleeyeen maanta idin dhamaatay bis waa haduu idin sheega taliye wuxuu leeyahay cid Rasulullah kuwa Soomaaliya waa ka shakisanayn may ma ahan leeyahay war waayihiin shak ma aha kuleeto intuu ka qabto darbiga saaro leeyahay nimanka ayaga waayihiin idh aan xabsiga cidaan Sri Lanka waa muuqata asaas ugu dhagan taliye askari kala soo galay telefoonka wuxuu leeyahay taliye ninkii garaacis isbitaalka yaale wuu dhintay haddana xabsi lagu gelina meeshan isaga tagu leeyahay lagu xiranay kii asoo ciil haya uu albaabka baxa markuu albaabka baxo ninkina waxa ku soo haray taliye yaqaan way fiirnaa cid intuu fiiriyo oo ka tagaa ayagana oo u maadcelina oo iska tagaa markuu baxo atooraa ka daba ordaay marka asoo dhaxbartama xaafada maray war taliye wuxuu leeyahay inaan qaxootiga waa ogahay maxaa noo qaris oo inoo sheeg waasi oo dabcan asxaankan noogu sameeyay wuxuu leeyahay niyo adiga qaxooti ma tihid wuxuu leeyahay markaan inta iimaana ciilka aan kuwa qabo malay karto cunigaaga adiga waa idbaalsteen cunigaaga ay dhahay iyaga ana iskale cunigaaga akaasha aan beer la xawsi awrideen waa iskiin fasaxay laakiin waxaan ogaaday qarax inaa ka dambeyseen kan tihiin inta waxa u maad inaa idin wado xabsi idin geeyo taliyahan idin ku diro laakiin wuxuu dhahay guri kasta markaan galno maxaa dhacay ma ogtiin u dhahaa cidaan u tagnabo oo odagi waxa laga bilaabay maamada ka dhimato hayl dhoo hadi magaca hebel af wuxuu galaa Sri Lanka taliyaha ku xanaaq Sri Lanka waxa uu hadlaysaa dokumentiga waxa ku qoran Tamil inaad tahay maxay islaamana Sri Lanka iyo Tamil ana Sri Lanka amal ixir oo ka soo tagaa cid kale u galaa oo balaayo kale ay meelaas ka soo jeedaan af Sri Lanka gashana Sri Lanka walaalahan waa taliyaha wuxuu ku wareeraa guri kasta markuu galo wuxuu taliyaha oo u sar ciidamada wuxuu ogaanaa xaafadan in cidna sheegaan ma rabaan sidoo kale taliye cidi yaqaaneen wuxuu ogaanaa cid inay cid fiican yihiin oo atoorahan fiican yahay dadkana xaafadan la wada jiraan sadarta wuxuu dhaw guri kasta markaan galno oo cid kasta u galna waxay taageen anaga reer Sri Lanka dokumentiga markaan fiirino kuwa waxa waay Punjab waay kuwa Maharashtra waa kuwa Tamil waay intaas oo cid oo xaafad degan kulligeen idinka difaacay marka waxa ogaado dhahay inaan nin fiican tahay xitaa cid ugu dambaysan u galna waxay ahayn Punjabi taliye ugu sareey uu farxoos oo maanta zinga uga shaqo dhahay aniga xataa Punjabi ah run ii sheega dadkan reer Tamil waa qiyaamay qof run ii sheego male cid reer Sri Lanka ii tilmaam markaan dhahay odagii zinga af Sri Lanka gashto dhaabo oo dhahay warka Sri Lanka ku turtay dadkaas dadkeena waa dhahay babana la kala saari kar markaas uu taliye xanaaq u dhahay marka taliyaha guriga markuu soo galay wuxuu iga rabo kaliya inaan dhaho ayaga waa soo idin wata laakiin waxa ogaado inaan qof fiican tahay dadka xaafadana ku jecel yihiin Sri Lanka iyo Punjab wax la kala saaray male meeshan farxad ugu noolaado leeyahay mid kale taniya ku dhaho qaxootiyaha dadka dhinac ka raac markuu eragaas dadka dhan gadaal taagin xaafadana wada dhageysanayaan taliyina waa ka tagaa
عدي أيوة وده فرحسن دتك حافظ فرحسن دتك عن كمديهين توريست فاميلي سمك عدي دل حسياش ساسا لو بحية دتك هذا كلها جيران غير تميل النقدان ماشي هذا كنولين ساسو فيلم كنا هذا ود موفي مركوا فيلم هيومن دراما أنا عادي إهان معناها بني آدم نمز عند أسكوب بعد نرلو صادر هذا واحد دم بيوجر ماله فيلم كهالفرق ومجرو بوق يرشق ومجرو وحير أو فاميلي كونفليكت ويلكي أباك ده مدام ويلكي وقبل وجع على جسوا ده جورس سريلانكا لكن أنت لك يعني كدي بس أبيس وأسفهم يا وفيلم واحد فان كله كاس مركز سوريا رتر لساران أو كلين رتر وحاس رتر فيلم عبتي رتر ما حنون كي كان يقدر عاو ود الدراما أصوات داودي وح شيء كم معان وبريان أن داود من مركز حتى درانك اللي أنت كوس استعمل فيلم كسلو very emotional وياه عادي ما نولش ربطه وتعبنا وحوا بس صح ونكاس مثلا هو أيضا كبر درم المهم عادي ما هن دريس كده عن سوق دوبان دتكي كلا السعودي dadkii isnacbaasay isugu keeneen jacaylka ay dhaxdhigaan reer tamil waxaana cidna sirraan kama wanaga aan cideena waa anaga haysanana taagay marka filimka saas ku dhamaa what a movie kan waa tourist family waa iga gadeen inay 5 star and see simple movie like aad u macaan oo ana u baahano iga dhamaa MSC Kumar waxa filimka waa jira la qof kasto film ku jiro micno uu jira qof iska soo galay ma jirto shaashada oo intuu ku agmar ilowis mid qof kasto oo soo galay filimka دايركتور كادنا سمي وحاول قف كستو صوغله سينك هاير هذا مو بدها كل هذا فيلم كمعن ugu fadhiya hadu film fiican yahay saasa lagu yaqaan marka saxbi almuqal kan inta soo noogay movie action kan caaw tourist family ku baashara bilis baxta waa sugu waa inaan shaqada tagay studio iyo background waxa soo ka gaar waa itqaan habeenada burursana film fiican soo daawada ma wala jiifakayo waxa markaas ugu taagan in aan ku shuban jeclay marka aan ku shubay hadaa tahay saaxiib nagu cusub janaalka ku soo dhaw meeshan ku baashaana subscribe noo sar aqyaarta joogtana wuxuu muuqaalka noo la garay YouTube channel kan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.